بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا كنال كيني SMCC. maanta waxaan ka hadlaynaa cudurrada ku dhaca codka. Sanduuqa codka ee afka qalaad loo yaqaan larynx waxa uu ka kooban yahay carjow, murqo iyo xub ku yaala dusha sare ee dhuunta iyo salka carabka. Dhawaaqa codka waxa la sameeyaa marka ay fiilooyinka codka ay gariiraan. Gariirkana waxa uu yimaadaa hawo ka soo dhaqaaqday dhanka sanduuqa codka oo isu keenayso fiilooyinka codka si ay isugu soo dhawaadaan. haddii fiilooyinka codka ay caabuq yeeshaan ama ay curyaamaan si sax ah uma shaqayn karaan oo waxa laga yaabaa in aad yeelato cilad xagga codka ah. Cudurrada codka waxyeeleeya waxaa ka mid ah hergabka, caabuqa ku dhaca dhuunta, burada ka soo baxda dhuunta, shaqaqab ku imaada xargaha codka iyo isbedelada hormoonada. Daawade, dadkii ayaa halis ugu jira inuu ku dhaco cudurrada codka. Dadka da ahaan ka weyn 60 sano, dadka isticmaalo maandooriyaasha sida qaadka, sigaarka, khamriga iyo wixii la midka ah, dadka qabo xasaasiyadda iyo dadka qabo infekshanada ku dhaca habdhiska neefsashada qaybta sare sida dhuunta. Calaamadaha lagu garto isbedelka codka waxaa ka mid ah codka inuu yeesho xabeeb, codka inuu noqdo mid qofkii ka soo bixi waayo waliba asagoo hadlaayo, codka oo qofkii awoodi waayo inuu kor u qaado. Sidee ayaa loo daaweeyaa cudurrada ku dhaca codka? isbedelada habnooleedku waxa uu qayb lixaad leh ka qaataa daaweynta cudurrada ku dhaca codka. Daawade, si aad isaga daaweyso cudurrada ku dhaca codka qaarkood waxaad u baahan tahay inaad la xiriirto dhakhtar cilmi nafsi ah. Daaweyntana waxaa ka mid noqon karto jimicsi. Sidoo kale waxaan ku daaweyn karnaa cudurrada ku dhaca codka inaan qofka siino daawooyin ayadoo loo eegayo sababta codka uu u bedelmo qofkan. Sidoo kale qofkii inaan qalliin ku sameyno haddii ay jirto burada dhuunta. Maasanid daawade, waana kaaga mahadcelinaynaa sida aad noola socoto.